gudoomiyaha gobolka saaxil xukiyaha fulinta dowladda hoose ee Berbera iyo sidoo kale Roode Axmed Yaasiin oo iyana ka socotay komishinka xuquuqlisaanka qaranka ee Somaliland iyo mas'uuliyiin iyaguna ka kala socday hay'adaha laamaha dowladda iyo dhalinyaro aad u tiro badan ayaa maanta ku soo dhaweysay xarunta gobolka saaxil ee Berbera ku dhawaad 60 dhalinyaro ah oo ka soo qalin jabiyay dugsiga Dararweyne gaar ahaan barnaamijka shaqo qaran oo ay muddo 3 bilood halkaasi tababar kala duwan uga socday dhalinyaradan oo maanta soo gaadhay magaalada Berbera goor gaaban ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka galbeed ee Berbera dhalinyaradu markii ay soo gaadheen magaalada waxay soo bandhigeen dhoolatus la xiriira tababarkii kala duwanaa iyo carbiska ay ku soo qaateen dugsiga Dararweyne ee ay muddada 3 bilood ay ugu jireen tababar la xiriira dhinaca ciidanimo iyo sidoo kale shaqo qaran gudoomiyaha gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan iyo sidoo kale xukiyaha fulinta dowladda hoose ee Berbera iyo Roode Axmed Yaasiin oo ka socotay komishinka xuquuqlisaanka qaranka ee Somaliland ayaa halkaasi hadallo soo dhaweyn uga soo jeediyay dhalinyaradan maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Berbera albaabka hore ee Berbera ku soo dhaweynayna dhalinyartii shaqo qaran ee ka soo baxday dugsiga carbiska Dararweyne oo runtii aanu si farxad aad iyo aad aan la koobi karin iyo qiimaha ay nagu leeyihiin awgeed iyo shucuubta macnaha maxaan ku idhaahdaa dareenkeegu macnaha dareensan yahay aan xilliga cadeed kuleelaha uga hornimi oo aanu soo dhaweynayna anagoo qiimaha ay nagu leeyihiin maalintii markaynu tagaynay ee suuqeen dambeysay waxa xaaladdu inagu ahayd nooc min al-qarba dadka qaarkood waxa ku yara jirtay karaaho maantana shucuubtiina iyo dareenkiina oo dhan waxa ka muuqata wadaneed waxa ka muuqda jid dhismay baa ka muuqda waxa ka muuqda maxaan ku idhaahdaayay rag maanta lagu xisaabtami karaynatiin runtii halka waxaad ku soo qaadateen sidaad sheegteen aad ku warbixiseen annaguna aan ogeyn maxaan ku idhaahdaa carbiskii difaaci dalkaaga inaad difaaci karto berita haddii loo baahdo matiin kaliya arday ka soo baxday dugsiyada sare waxaad tihiin niman jaamiciina aqoontii maadigiina waad leedihiin tii difaaca dalkiinana waad soo barateen inaan maanta halkan ku soo dhaweynayno in afaafka in magaalada Berbera magaalada madaxda gobolka saaxil ee dhalinyaradii reer saaxil ee shaqo qaran ee qaybtii gobolkan ka yeeshay runtiina ma garan karayo si aan ku sharaxo yani expression aan ku sheego farxadda iyo reereynta dhamaanteed naga muuqata waayo waan garan karaynaa mashruucan bilowgiisii waxa laga yaabaa dad badan oo shaki ka qabay inay jiraan laakiin mashruucan wuxuu ka mid noqday mashaariicdii qarankan gaar ahaan xisbiga kulmiye gaar ahaan dawladda Muuse Biix Cabdi iminka uu hogaaminay madaxweynaha qaranku mashaariicdii ugu mudnayd ee inoo fusha ee inoo horgaleen suurtagal nimankan waxa ay ka yimaadeen xero ciidan khibrad ciidan bay soo qaateen oo waliba ay imtixaan u galeen oo aan lagu geeynin hab beelaysiya oo ciidanka lagu geyn jiray awal waxa aan idinku bushaareynayna in aad horta helaysaan samirkiina iyo waajibaadkiina aad soo gudateen qarankuna uu idin damaanad qaadayo sidii hore u aaminteena aad u aaminsanaataan waxaan anigu idin kale oo idinku dhiirigelinaya calafka ilaahay baa qoray waxa ugu koowaad ee meesha ka soo hesheen khibrado oo kaliya maaha waxa soo hesheen bangigiina dadka ayaa soo buuxsamay qaar ka mid ah dhalinyarada oo iyaguna halkaasi dareenkooda ka hadlay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin barnaamijkan shaqo qaran oo ay tilmaameen in uu yahay mid hididiilo iyo rajo fiican u abuuray dhalinyaro ahaan halkan waxaan ku suganahay haddaan nahay dhalinyarada saaxil shaqo qaran guulo la taaban kale ka soo heynay barnaamijkii shaqo qaran waxyaabihii aan ka baranay waxa kamid ah shaqo qaran samirka dulqaadka iyo maamulka wanaagsan dhalinyaradan ka soo qalin jabisay barnaamijka shaqo qaran oo ahaa kuwa aad u dhisan ayaa ay ka muuqatay dardargelin iyo sidoo kale wadaniyad la xidhiidha tababaradii ay soo qaadanayeen muddadii 3 bilood dhalinyaradan ayaa wejigooda ay ka muuqatay farxad aad u ballaaran oo la xidhiidha barnaamijkan ay ka soo qalin jabiyeen ee shaqo qaran mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera